ka dhacay magaalada Muqdisho haddaba sidee Kenya uga hadashay weerarkaas waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa xogta wararkii ugu dambeeyay kulan gaar oo farmaajo iyo madaxweynaha Kenya ay ku ballansan yihiin iyo cidda ka shaqeynaysa kulankaas Puntland xukun adag ayay ku riday dhalinyaro kufsi wadareed dhawaan ka geystay magaalada Gaalkacyo dowladda federaalka Soomaaliyana fariin adag ayay u dirtay Imaaraadka Carabta xilli wali ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya diyaar garooba daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo goor aan idin soo gudbin markale waxaan wanaagsan daawadayaal waa labada bisha saddexaad ee Maaj sanada 2019 maalinimo Sabtiya haddii aynu ku bilowno barnaamijka dowladda federaalka Soomaaliya mar kale warayay ka soo saartay qarxadiis midaaminta ahaa iyo weerarkii tooska oo al-shabaab habeen ka hor ay ka geysteen nawaaxiga wadada Makka al-Mukarrama gaar ahaan wadada halbowlaha u ah magaalada Muqdisho ee Makka al-Mukarrama wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo warbaahinta kula hadlay hoteelka Makka al-Mukarrama oo shabaabku habeen ka hor weerareen waxa uu sheegay dowladda Soomaaliya qorshayaal cad inay u dejisay ka hortagga weerarada iyadoo bedeli doonta sida uu yiri qorshii ahaa ka daba tagga waxa uu sheegay inay qaadayaan tallaabo kasta ay kaga hortagayso dowladda Soomaaliya weerarada dhibaatooyin badan shacabka Soomaaliyeed ka soo gaaray geystaan shabaab waxa laga xumaadayo ku tilmaamay weerarkii habeenkii Khamiista shabaabku ay ka geysteen hoteelka Makka al-Mukarrama iyo goobo ganacsi oo kaag dhawaa kaas oo qasaaraha ugu badan shacabka Soomaaliyeed uu ka soo gaaray waxaa naga go'an anaga dawlad ahaan dadka kan qarannimada saas ugu faradeegay in aan la safano waxaan ka la safaynaa bulshada meel kasta joogto waxaan kala safaynaa cadawga iyagu nolosha u diidan oo waxyaabaha ay kharibayaan ay kamid tahay iyagu mustaqbalka ay lahaayeen amba ubadkooda mustaqbalka oo lahaan lahaa waayo ajnabiga ay soo kaxaysanayaan iyo calaadaha ay wadaan ma u suuro gelin doonaan hadii dalkaani kharibayaan dalkooda inay intay tagaan ay kula noolaadaan jinsiyada iyo lagu kala baxay kii ay ku noolaan lahaayeen oo ay bahalka ku yihiin baan ka gacanahaynaa kala dirayna ay nagu maagayaan ay nagu soo weerarayaan laakiin waxaa naga go'an qancin iyo iska celin iyo ka hortag inta inaan ku dhaqano dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka dhibaatada ka soo gaartay waxaan ku dhiirigelinaynaa in nimanka ay u diidaan inay dantooda gaaraan dantooda ah inuu dalkaani mugdi noqdo dadkiisuna ay rajo beelaan inta tayadalan ay ka qaxdo inta tabarta daran iyaga ay u hoggaansanto inta waa dhicmayaan gasta kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic lagu weeraray madaxtooyada Soomaaliya kuwaas oo qasaaray ka dhasheen waxaa duhurnimadii maantay tiro madaafiic ah lagu weeraray xarunta dalka looga arrimiyay filla Soomaaliya waxaana madaafiicda qaarkood ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada meel aan ka fogeyn guriga madaxweynaha iyo xafiisyo kale oo muhiim ah sida wararka aynu ku helayno saddex kamid ah madaafiicda waxay ku dhaceen gudaha madaxtooyada gaar ahaan meel u dhow xafiisyada madaxweynaha guriga doorashooyinka iyo sidoo kale filla Hargeysa waxaa sidoo kale madaafiicda lagu weeraray filla Soomaaliya ay ku dhaceen xarunta wasaaradda ganacsiga warshadaha oo ku taal dhabarka dambe tiyaatarka qaranka madaafiicda ku dhacay gudaha madaxtooyada Soomaaliya ayaan wili loogeyn qasaaraha ka dhashay waxaana madaafiicdani qalqal ku abuureen qaybo kamid ah madaxtooyada Soomaaliya oo dadkii ku sugnaana waaxigay ku soo dhaceen ku carareen guryo shuba waxaa sidoo kale madaafiicda lagu weeraray xarunta madaxtooyada Soomaaliya ay ku dhaceen xaafado iyo dhismayaal ku dhow madaxtooyada lamana ogo qasaaraha dadka shacabka soo gaaray shabaab ayaa durba sheegtay mas'uuliyadda madaafiicdan goor lagu weeraray guriga looga arrimiyo dalka ee filla Soomaaliya waxaana ay sheegeen in laga lahaa ujeedkii laga gaaray isla markaana ay ku hubsadeen gudaha madaxtooyada madaafiicdan dharaar cad lagu weeraray madaxtooyada Soomaaliya oo ay degan yihiin madaxda ugu sarreeyay dalka ayaa muujinaysa habacsanaanta amni ee ka jirta caasimadda Soomaaliya waxaana shacabka Muqdisho wili ay la murugaysan yihiin weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee habeen ka hor ka dhacay Makka al-Mukarrama وهجاك داود يال ورقادي أنا جلس عطان قيبي هراء برامج كاينو كوجد جرنا قضبة دورة أي ناس السعودية كم يهين بطلان وحكم أذكر الدي دلنا يردوان قال كعيك جيستكوا في سودرات
iyo wadamada caalamka qaarkood oo ay Kenya ku jirto soo saaray war la xiriira qarxidii dhawaan ka dhacay Muqdisho balse haddaynu eegno dowladda federaalka Soomaaliya ayaa fariin adag waxay u dirtay waddanka Imaaraadka Carabta oo faragelin siyaasadeed weli ku haya dowladda Soomaaliya oo weli cabasho ka ah faragelin siyaasadeed oo ay ku hayso dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegaysa inaysan u dul qaadanayn damaca Imaaraadka Soomaaliya ay kala yihiin safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Ambassador Cali Saciid Fiqi ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta Soomaaliya ay ku hayso dhibaatooyin dhaqaale iyo mid siyaasadeed xilli dowladda Soomaaliya ay wajahayso siyaasado diblomaasiyadeed oo dibadda ah Ambassadorku waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u dhabar adeegtay cadaadiska adag ee kaga imaanaya Imaaraadka Carabta balse waxa uu bogaadiyay go'aankii adkaa oo ay qaadatay markii wadamada Carabtu isku dhaceen badankoodna xiriirka u jareen waddanka Qatar Ambassadorka oo sii hadlay waxa uu tilmaamay weli waddanka Imaaraadka Carabtu inuu farafareyn ku hayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya ha yeeshee madaxda sare ee qaranku arrintan go'aan adag ka qaateen dowladda Soomaaliya ayaa la kulmaysa muujado siyaasadeed oo dibadda ah iyadoo la rumaysan yahay qalalaasii siyaasadeed ee wadamada Carabtu in Soomaaliya saameyn badan ay ku yeesheen waatahay daawadayaal warqaad ayaa nagala socotaan barnaamijka arrimaha siyaasadana waa daawanaysaan wadamada caalamka qaarkood ayaa war ka soo saaray weerarkii ismiidaaminta ahaa iyo dagaalkii tooska ahaa oo markaasi habeenka hor shabaab ay ku qaadeen hotelka Maka al Mukarrama ee magaalada Muqdisho dowladaha dunida qaarkood war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ugu tacsiideen madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaana ay tilmaameen inay ka xun yihiin waxyeeladii shabaabku weerarkaas iyo qarxadii ay ku geysteen war-saxaafadeedka ugu horeeyay oo ka soo baxay dowladda Qatar ayaa lagu sheegay in Qatar ay ka xun tahay dhibtii gaartay shacabka Soomaaliyeed waxaana ay tacsi u dirtay madaxda qaranka waxaa kaloo war-saxaafadeed iyana soo saaray dowladaha Sacuudi Carabiya Turkiga Bahrain iyo Djibouti oo si isku mid u sheegay inay ka xun yihiin dhibaatada soo gaartay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed taas oo la xiriirta weerarkii qarxiyada ahaa oo shabaabku Maka al Mukarrama ka geysteen ha yeeshee dowladda Kenya ayaa si ka duwan sida dowladahan uga hadleen waxay uga hadashay weerarkaasi qarxiyada ahaa oo dhibaato badan shacabka Soomaaliyeed ka soo gaartay dowladda Kenya waxay sheegtay inay ka xun tahay arrintan ha yeeshee tacsideeda waxay soo marisay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo xusid ay mudan tahay dalka inuu joogo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dad badan ayaa isweydiinaya sababta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tacsiday u soo marisay xukuumadda Nairobi xilli khilaaf xooggan uu ka dhaxeeyo dowladda federaalka iyo dowladda Kenya waxay sheegtay inay muhiim tahay labada dowladood inay iska kaashadaan kooxaha argagixisada ay ugu yeereen si amniga looga wada shaqeeyo waxaana qoraal ay soo saartay ku xustay magaca ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed iyadoo marna aan soo hadal qaadin madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Farmaajo arrintan ayaa muujinaysa xiriirka xumaaday ee u dhaxeeya labada dowladood iyo sida markaasi tacsida loo soo diray qaranka Soomaaliyeed looga reebay madaxweynaha geesta kale waxaa lagu ballansan yahay qabsoomida kulan toos ay yeeshaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo kan dowladda Kenya Uhuru Kenyatta kulankan oo la qorsheynayo inuu ka dhaco magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxa qaban qaabinaya madaxweynaha waddanka Masar Cabdifataax Zizi oo ah gudoomiyaha midowga Afrika kulankan labada mas'uul ay isku arkayaan waxa looga hadli doonaa xiriirka xumaaday ee labada wadan iyo sidii loo soo celin lahaa ayadoo labada madaxweyne aqbaleen kulan gaar ah inay wada qaataan arrintan si weyn waxa uga shaqeeyay madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Zizi oo ah gudoomiyaha ururka midowga Afrika 13 bishan ayaa la qorsheeyay inuu kulan ku dhaco kadib markii uu soo gabagaboobo kulan loogu magac daray New Africa oo isna lagu qabanayo isla magaalada Kampala kaas oo wadamada Afrikaanka qaarkood ay isku arki doonaan wahagaag daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay
maamulka Puntland maanta xukun adag ayuu ku riday dhalinyaro kufsi wadareed dhawaan ka geystay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. maamulka Puntland ayaa xukumay 5 ruux oo dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa inay ka dambeeyeen fal kufsiya oo dhawaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. 5 ruux ee la xukumay ayaa la sheegay inay kufsi wadareed ka geysteen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, waxaana lagu xukumay dhammaantood dil toogasho ah. kiiskan maanta xukunka laga gaaray ma ahan midkii la xiriiray kii Caaisha Ilyas, balse waa mid ka horeeyay oo markaas isna ka dhacay isla magaalada Gaalkacyo. maxkamadda maamulka Puntland ayaa eedeysanayaasha maanta maxkamadda la soo taagay ku xukuntay dhammaantood dil toogasho, waxaana taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Garowe la faray inuu xabsiga ku sii hayo dhalinyarada la xukumay ilaa xukunkooda laga fulinayo. guud ahaan daawadayaal waa nageyntaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad, intaynu mid lamida ku kulmayna haddii uu alla idmo. nabadgelyo. ku soo dhawow warqaad press. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share garee. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaalo cusub. fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga. aad baad u mahadsantahay.